السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت الصومالية ملك سوا الدنيا دي عالم كجوتان ولكن مسكينكي الله عبد الرحمن بن عبد الله بن حاجي أو هل كان عاوة إذن كواهي مرتي شرف وولاشين حمدي أو مرتي ما شاء الله حمدي سومالوين مكسلام سوال الله ما شاء الله waxaa halkaan isaguna nala joogaa walaalkeen lawyer-ka Soomaaliyeed walaalkeen Ismaaciil ay Muhammad oo taagan jiidayda waxay taagantay حجوز تاعتي والله غير ما شاء الله جزاك الله خير ترني ادلو ما شاء الله walaalkeen ما شاء الله waxaa halkaan midigta iga xiga walaalkeen ماهر عبد الوهيل ما شاء الله ما شاء الله كوثر موسى كوثر حرسي موسى صار في صار يرجع يعني waxaan ku soo dhaweynaya walaashay xaajiyo hodan maxamed salaanay awliyo iyo marwadiisa ma sha Allah ifrax ma sha Allah walaalayaal saad ogsoontihiin ba alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan halkaan uga mahadnaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta dunida iyo caalamkaba ay ka joogaan sidii hagar la'aanta ahayd oo ay noo garab istaageen oo noola garab istaageen ducadii iyo soo xaadiristii ay soo xaadireen halka kana ay soo xaadireen dhammaantiin jazaakumullahu khayran wa baarakallahu fiikum wa ahsana allahu ilaykum shalayto sidii Soomaalinimada ahayd oo aad u garab istaagteen walaashiin xamdi ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka ajarsiiyo walaalayaal khayr fara badan allah siiyo jazaakumullahu khayran wa ahsana allahu ilaykum marka koowaad waxaan isxasuusin lahayn adduunyada tan waa guri imtixaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu quraankiisa kariimka ku yiri wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamaraat wa bashshir as-saabiriin ilaahay wuxuu yiri wallahi lanakhtabirannakum wa idin imtixaamayna cabsi iyo gaajo iyo xoolaha laynku yareeyo wanaqsi min al-amwal wal-anfusi kaad jeclayd oo asaguna ama dhinta ama yani wathamarat beerihi abaar dhacda wa bashir as-saabiriin ilaahay markuu subhanahu wa ta'ala kuwa adkaystayaalka adkaysta oo dhibaatada u adkaysta markii dhibaato ku dhacdo oo bishaare alladina idha asabatu musibatun wa inna ilayhi raji'un ilaahay ba anaga nala asagan u noqonayna marka ولا شيء حمدي ويتر إنا لله ده ولا لي وإنا إليه راجعون ما شاء الله ولا شيء وقبر مسلمة رميسا أركان الإسلام أركان الإيمان ويحفظ صنطي ما شاء الله أركان الإسلام 5 شهادة أن لا إله وأن محمدا صلى وإقام الصلاة وصوم وحج له ما شاء الله أركان الإيمان أن تؤمن بالله وكتبه والرسل واليوم وبالخيره وشر ما شاء الله مركا وحي إلهي كو قري يعني خير يشرب قفك مؤمنك حي وين ورالك يهي حي لي إلهي سبحانه وتعالى قرآن سكيري احنا قصد وين يا لويرك او نشرح دونها قبلها شرفت ما شاء الله يعني ان شاء الله تعالى إلهي وحي سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير يعني wax kasto musiibo oo dhacaysa wax kasto dhacaya dhulka ka dhacaya ama idinkay ku dhacaya illa fi kitab min qabl an nabraha wa wax qoran yani inta ay qabla an nakhluqaha inta la abuurin kahor ayaan hadii ilaahay subhanahu wa wax kitaab ku sugan yani awwal ma khalaqa Allah al-qalam wixii ugu horeeyay ilaahay abuuray markuu ciriga dhul oo may ka bacdi wuxuu ahaa al-qalam kasa ilaahay wuxuu kun uktub maxay rabbi maxaan qoraa wixii dhici lahaa ila qiyaam as-saa'a marka وكان أمر الله قدرا مقدورا مركا لكن الدون كانوا ما قرر راحة جنة الله الدنيا قرر راحة ما إلهي سبحانه وتعالى يعني مصيبك بحمينه إلهي القرآن سعكوية لقد خلقنا الإنسان في كبد من مشقة إلى مشقة دب امتحان ليكو جرينا حتى برواقض وامتحان يعني إلهي وحو كفيرون يا مكو شكر الإسلام وامتحان لفتكيدي الدنيا لما امتحانه
marka raaxa xaggay taalla aakhiray taalla aljannay taalla ilaahay subxaana watacaala rasuulkana wuxuu noo sheegay marka ilaahay qoom jecelaado wuu imtixaamaa ilaahay wuxuu imtixaamay annabiyaalkii buu imtixaamay ayuub calayhi salaam ba inaa wajadnaahu saabiran nicma alcabd yuusuf baa ilaahay imtixaamay ceel muusa ilaahay hooyadiis maaragtay yani ilmaheedii fircoon kale ceel ku riday biyo iyo webi ku dhex ridaysa saa ilaahay leeyahay inaa raaduuhu ilayk innagaa kuu soo celinayna insha allah carruurtaadi waa kuu joog gabadhaadi waa noosha waa joogtaa dadkeedii baa haya waa noosha maasha allah yani balaaya ma qabto maasha allah waa lagu tusaya marka walaalayaal waxaa lainooga baahan yahay kulligeen يعني دقنك قالada inaynu yeelano maaha gaalada marka dhib yar ku dhacdo gaalku wuxuu leeyahay why me god cirku fiirinaya xamday wuxuu leeyahay ilaahu maxay ka daba dhigay bal waxa ka war ilaahi wuxuu leeyahay ilaahu maxay ka daba dhigay laakiin qofka muslimka wuxuu leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un marka qofka muslimka yani waa qof muslim ah oo ilaahi subhanahu wa ta'ala yani aaminsan yani dhib kasta fa inna ma'a al-usri yusran wala shay taqan inna ma'a al-usri يسرا نبكى رفاتك يا قحرك يا عدلada iyo zawjkaaga iyo ama ka dhinta ama ka waxisma ama adkarat ama cilla ajog wax ka fiican salama markii ninkeedii zawjkeedii dhintay iyo waxay xasuus ducadan ahayd qofkii markii musiiba ku dhacdo dhaha inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ilaahay wuxuu ugu bedelaa wax ka khayr badan markaas ay tiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ya ilaahay bay tiri hadii ilaahay ku idmaayo markay ducadii akhrisay tir yaa zawjkayga ka fiicna ninkayga hebelaha yaa ka fiicna ila moogtahay islaantu waxay u qabtaa ninkeeda kaliya inuu yahay nin kaliya oo adduunyada ka nool moogta yaa ninkayga xoga ilaahay ugu bedelay nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam baa gursaday wax ka khayr badan baa ilaahay ugu bedelay marka haddii ilaahay zawjkaagii imtixaan kugu dhaco mid ka khayr badan baa alla kugu bedelay caruuro kale alla ku siin wax walba maalkii maal ka khayr badan laakiin waxaa muhiima qofku inuu ogaado wixii tagay waa tageen shalay waa tagtay maantana waa joognaa ilaahay sadaqada waana faray maanta marka taasna ayaduna way kamid tahay marka xawaaladihii waa idin siin doonaa informationkeedii oo halkan qofkii cash ab kusoo diraya oo haddii ilaahay ku idmahayo ama akoonkeeda iyada oo kaasa oo Chase Banki ah xawaalad kasta oo xawaaladaha loogu soo diri karo numberkan waa numberkan dama soo kan wakeedi soo ma كان واقف لا حرير كان نصو حرير كان ما هو يشم سميه كان صح كاس هذا نصو حرير ان شاء الله يا هذا نصو حرير كان نمبر ابا هذا النمبر كده ويه هذه لا يكون ما هي جوجتا Somali NGO bay joogtaa non profit oo la yiraahdo maxaa la dhahaa our helpers baa la dhahaa marka waa jaaliyada Kawthar iyadoo isbitaalka ay waa caafimaadka gabdhaha caafimaadka joogtaa ma sha Allah aad iyo aad bay u mahadsan tahay aniga maanta waxay Kawthar ii ballamisay vaccination yani maxaa la dhahaa af Soomaali COVID-19 vaccinationka ay brito yani oo waliba lagu helo ciiri iyo Soomaalnimo iyo iga gaarsiiyay marka meel bay ii ciiri khayr Allah si wala shay marka waan soo qaadanaya insha Allah ta'ala talaalka asagana mar baan ka hadli doonaa oo yani iyada noo sharxi doonta insha Allah ta'ala wax yar ka taaban doonta walaalkeen awliyo oo looyarka ay walaalayihiin ma sha Allah hadii la ku idmaayo iyo marwadiisa hadii la ku ifraax sidoo kale waayeel hadii la ku idmaayo waa dad Soomaaliyeed dhalinyaro isiimid maahir hadii la ku idmaayo ma sha Allah maahir soo dhaw walaalkay horta marka ugu horeysa dhammaan Soomaali weyn dhamaantiin way idin duceynayaan sidoo kale waxaan wacay walaalkan Xasan Deere asaguna ma Somali Community Association inkastoo aan fiicnaa lahayn early aan balan u soo hadana waa mashquulsan yahay oo habeen goor dambe way hadii ay ku idmay marka asagana waan salaameynaa goobjoog buu ahaa thank you very much sidoo kale dhalinyarada wastiga iyo masaajidiyada iyo culamaa u diinka kulligiin waan salaameynaa Soomaali weyn meel kastoo joogto waan salaameynaa waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabka weynaha Soomaaliyeed meel kastoo ay caalamka ka joogaan iyo dunida sidii sharafta lahayd oo igu qiiroodeen wallahi gabdhaha ilmeynaya oo yahay meel kasta iga soo wacaya yani ma malayn kartid jacayl iyo ay u qabaan gabadhooda walaashood ma sha Allah ducadiina Ilaahay uu aqbalay subhanahu wa ta'ala ayana ku badan warka waatan walaashin xamda oo idin la maxay jazaakumullahu خير الله ينسيه وبارك الله فيكم ميل هو وباهن هذا اللي ما كانوا ميل هو وباهن هذا
dan gooniya ama qabiil ama wax lamida walaalnimo islaamnimo soomaalinimo tulnimaan isugu nimid in gabadhii maasha allah yani magaceedii aad lacagta kusoo dirtaan akoonkeeda ay isticmaasho kaash abka iyo teleefonkii aad ugu soo shubtaan lacagtii yani dadka jaaliyadda ah ay si sharaf leh oo karaamo leh ay lacagteedii si ammaano leh ay u gutaan anigu waxaan ahay hadii ilahay kudmaya warka ayaan idiin soo gudbinaya lacagna anigu amaan qabanayo laakiin dadkan walaalaheen oo isu xil saaray inay lacagtii ama qabtaan ama maalkii ay qabtaan ama ammaanadii ay qabtaan ayaa insha allahu tacaala biidni illahi tacaala warbixinta idin siin doona kusoo dhawow walaalkay marka hore waa ku mahadnaqaynaa dhammaan tayo jazaaka allahu khayran si sharafta lahayd halgankii aad bixisay dadaalkii adiga dhammaan qaybaha kala duwan ee jaaliyadda bal soo dhawow bal arrinta tan walaasheen ifraax bal sharaxaad naga sii hadii ilahay kudmaya sidii wax u dhaceen iyo sida wax u jireen iyo waxa jaaliyadda dhibaatooyinka haysta qurba joogta haysta xagga caruurta laga qaadanayo iyo wixii lamida iyo wax loo baahan yahay iyo wax loo baahan yahay in laga digtoonaado ما شاء الله جزاك الله خيرا شيخ عبد الرحمن دبعسر جزاك الله خيرا runtii adiguna haligay Soomaaliyeed baa tahay saa ugu istaagtay saa ugu shaqaysay yani isgaarsiinta iyo warbixinta naga soo gaarsiisay xaaladan runtii isgaarsiinta dabcasar hadii uu lahayn waxay lahayd fursadan ma helayn asku ilaahay ka soo thumma markaas ka bacdi ha جزاك الله خير aad baan ka mahadcelinaya ama almost 4000 ma hadda idin daawanaysa ma sha Allah oo Soomaaliyeed oo sugayay warbixinta walaasheen xamda iyo dhibka kan waxa jira ilaahay kudmaya xaaladan nacam ما يبغى وين جوجتا حمدي محمد أحمد مركب ولا شيء الحمد لله يعني الدنيا قف كسحرد وصومري كرا لكن ولا شيء وحي سبتها بلش الصومالي ذات والشعل وناكسن وشعيل يقيله وهي قف كالصومالي اللي بعتيسن أنا واحد أقول دوما دين تكلم كريستيان ما يديمه كذا واحد واحد المسلمين بان هاي سكون حريسته سكون القاطة إسعاوية مركب بايا الحمد لله جاريد إني هي ستو ديار وإني تاجران الحمد لله بايو المهدي يركها قبل دي وسأول السعتين شلي عن وربحنت السوق البني المهدي ولا السعودي المهي الحمد لله وحلو وريشي قبر أو يعني فاميلي يعني بقى عندك وهي يعني جا محل ده فاميلي كل واحد هنا قبل دي أيضنا جرو هاي اللي شفتها أيضنا فاميلي اللي شفتها أيضنا عاديات مركب قبل دي ولا يحد برشلونة ساو مقليسان سونا دم عصر ولا واجي runtii adduunyada meel kasta nagala soo xiriiriyay abaayisya lagu caawiya lagu taakuleeya marka hadeer waxaan rabnaa caawin inaan la wadaagno insha Allah horta abaayis sida lagu caawin karo insha Allah waxaan rabaa also inaad taabto xaaladahan dhacay sida lagu hortagi karo dabcasar lagu taabtay runtii dad badan bay xaaladahan ku dhacaan horta xaaladahan qofka ilmaha laga qaadanayo mise dhibaatooyinka qoysaska ah waxaan u baahanaa insha Allah inaan warbixin guud idinka siino sida u ogaatiin waxaad samayn kartiin xuquuqdiina iyo meesha u soo raacan kartiin إن شاء الله ويدعي كرتا قف إني child services مثل هيدا عروض قبل سن قف أيضا معاني المكة قادم مثل المكة قادم نكو حلو بهاي قف حقي إنه وقاعده إنه قف كو lawyer وعنكره وشرعي حقه ولاي هاي لجوانين كرو وبروسس كلو شيء كرو باي الحمد لله فرصة بحاول يعني نقول أنا هاي lawyer مجال نشوجا وصومالي مسلم لو قد يذكرني إن استمرك أباي وكالمضو لنا نشوجو waxaan u sheegaynaa bulshada insha Allah qofkii xaaladdan hore ku dhacda way ila soo xiriiri karaan xafiiskayga insha Allah sheekh dabcasarna insha Allah teleefankayga adresskii kullin insha Allah soo gelin doonaa sida wixii xaaladahaas la xiriira idinka uga soo xiriiraan dadkan oo soo ila soo xiriiri karaan sheekh dabcasar insha Allah bulshada soo gaarsiin kara waxaan la joogto walaasheen Hodan Maxamed aan aad ugu mahad celinayno NGO ku socota iyadana bulshooyinkan oo xaalado badan ka caawiya dadka caawimaadyo badan dadka u sameeya hay'adooyin badan ku xiran community ka caawin kara oo soo waxaan la joogto walaasheen Kawthar walaalkeen Maahir Ali dadka marka jaaliyad baan haysanaa runtii aad iyo aad qaali nooga ah oo marka diyaar noo ah inay dadka caawiyaan garab u noqdaan marka insha Allah waxaan dadka la socodsiinaynaa insha Allah okay meeqa daqiiqo don't worry insha Allah meeqa soo halka safar marka insha Allah dadka waxaan la socodsiinaynaa marka xaaladda hadii dhacdo xitaa insha Allah inay dadka nala soo xiriiraan dadka insha Allah ay xafiiskii la soo xiriiraan teleefankii waxna waa soo warbixin la soo gudbin doonaa insha Allah قف أي ذلكان حقوق شرعي نظام بالليل ذلكان سيستم بالليل نور عن كرو سيستم كاسم حكوا سنين إن شاء الله إن ذاك نوصل حريران لكن إن شاء الله إن شليتو قبل ولا قاضي ولا شيء إن لكن صدق دقة يا إلهي نوسسي أن صقدي ده حكوا صحيح لنا إن ما واحد جرى وقت أن أو جديس المهاس لا لسه نقوم كرو مياتشرة أو وقت كصدق دافتنا أي سنة قاعدين كرتي مياتشرة أو وقت صح ما يقول تبراسك ويكل دوين ودوين كلهم مريكرو وانت وقت جو أنكم إحنا لكن سو واحد كحر أنت قف كور تما هيستقف ويعني قاعد يكر مسؤولية دعنقة قف عاون كرا خاص وحنا قوم كرا قف فهم اللي قف كان لا بس قف واحد سكويهين فامليهين قف وحنا قوم كرا حتى فاملي لا هين قفك وسجن عاون كرا
marka kow waxa ay qofka horta inuu insha Allah soo xiriiri karo qof caawin kara hay'aduna xog waxay saartaa qofka family-ga ugu dhow in insha Allah mas'uuliyadda siiso marka hadduu haysto qofkan qof family u ah isla markii waxay ogolaan karaan qofkaas inuu process dalbado oo dhaho kinship sida loogu wareejiyo ilmaha mas'uuliyadiisa taas bay markaa maxaa dhahay aan anagu isticmaalnay sababta ay ku tahay bulsho weyn aan community-gan haysano abaaya la shaqeyn karaa marka waa fursad bannaan oo qofku isticmaali karo dad badan ma yaqaanaan ama sharcigii wax kama yaqaanaan wadanka oo cultural shock baa ku dhacay ama differences ilmihiisii yani